ilaa 6 maqribnimo oo galabtan ay socotay waxaan rabnaa inaan halka kaga dhawaaqno in 16 goobood oo kamid ah 18 goobood ay soo xirmeen si nabadgelyo ah ku soo xirmeen haddana ay socoto goobahaas ay ka socoto tirintii codadka 2 goobood oo kamid ah na ay wali furan yihiin oo dadku codeynayaan si waafaqsan xeerka doorashooyinka kaasoo dhigaya in marka la gaaro 6 maqribnimo haddii wali dad safka ku jiraan safka gadaal laga xireeyo meesha ugu dambaysa loona ogolaanayo intaas marka safka ku jirto degmada magaalada Qarxis iyo magaalada la yiraahdo Xasbahalle markii la gaaray 6 maqribnimo oo xilligii xirmayseejadu wali dad muwaadiniin ayaa safka taagnaa sidii xeerka waafaqsanayd guddiga doorashooyinka howlwadanadooda halka jooga waxay hay'adaha amnigu waxay gadaal ka xireen safka haddana wali waxa socota codeyntiisa labadaas meelood 16 goobood oo kale oo ay ka mid yihiin 3 goobood tan aynu joogno ee degmada ay kuwa ugu codka badnaa ka mid ahaa si nabadgelyo ku soo xirmeen tirintii baana socota meel kasta markii tirintu soo dhamaato guddiga doorashooyinka wuxuu sameeyay platform ama nidaam digital oo warbaahinta guddiga lagu soo bandhigi doono goob walba natiijada preliminary-ga ama hordhaca oo goobta ka soo baxday iyo wixii la kala helay wixii xumaaday kadibna dhammaan mas'uuliyiinta goobuhu mas'uul walba markuu dhammaystiro ururada la siiyo warqadda caddaynta natiijadii ay ka heleen goobtaas urur walba howlwadanadu waxay soo samayn doonaan safar ay ugu soo noqonayaan xarunta degmada iyagoo keeni doona ku soo xoreyn doona qalabkii iyo natiijooyinka mas'uul walba natiijada inta ka horeysuba soo diraya waa la helayaa laakiin natiijada kama dambaysta iyo in goli deegaanka lagu dhawaaqo waxay qaadan doontaa marka dhammaan natiijooyinka isku soo dhacaan dhammaan goobaha wali codan ka socotay soo dhamaadaan degmadana ay ku soo xoroodaan balse natiijadaas hordhaca ayaa la samayn doonaa inta waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo howlwadanadii guddiga doorashooyinka wakiiladii ururada siyaasadda joogay ee doorashada joogay hay'adaha amniga oo si iskaashiya oo sidii loogu talagalay 100% ka fiican shaqadoodii ka soo baxay si nabadgelyo ah oo hufan shaqadii u qabtay ilaa ay haddana aysan taagnayn hal cabasho ama hal meel oo wax lagu kala arki duwan ay ka jiraan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay door muhiim ah ayaad ka qaadateen geedi socodkan inuu hirgalo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay'adaha amniga saraakiishooda halkan la joogaan oo ilaa xalay ilaa shalay heegan ku jiray safar ku jiray meeshii ka soo sheegay ciidan u diray iyagana si gaar ah ugu mahad celinayaa aan ka daalin inay maaragtay fuliyaan waajibaadkii loo idmaday amniga doorashada waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo korjoogtadii iyo mas'uuliyiintii kala duwanaa korjoogtada gudaha iyo kuwa caalamiga ah nala shaqeynayay goobaha kormeerayay qaarkood ay wali joogaan meelaha lagu tirinayo ay joogaan waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u mahad celiyo warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha Puntland iyo kan caalamiga ah ee goobjoogta ah ee doorashada oo iyaguna aan marna ka daalin oo tabinayay dhamaantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad marka ugu horeyso horta saxaafaddu kaalintii runtii laba ilaawaanka ah oo aad ka qaadateen aan idinka mahad celinaynaa mahadda iyo heerarkeedii iyo inta astaahishay iyo siday ahayd Cabdirasaaq baa ka warramay waxaan jeclahay inaan in yar dib ugu noqdo doorashadu intay jirtay kaliya ma aanan ahayn waana loo yimid hay'ado caalami ah safiiro iyo saaxiibo kale oo runtii iyo miidiyaha caalamka warbaahinta caalamka qaar badan oo ka mid ah inta waxay aad iyo aad maaragtay ay wax noogu tareen sidii maantay hawshan socoto oo runtii ma hadda ugu weyn aan u jeedinayo dadweynaha si isu xilqaameen sidii maaragtay ay kalsoonida lahayd sidii sharafta lahayd oo dadku ay safafka ugu jiraan qorraxda iyo kulaylka ay ugu adkaysanayeen u dulqaadanayeen haddana ay codkooda ay dhibanayeen oo ku faraxsanayeen oo qofkii maanta dhan saf ku jiray oo daalanaayo dhididka ka socda diyaabaysid markuu codkiisa dhiibto isagoo faraxsan u baxayay taasna waa wax weyn aan la iloobi karinin safiiradii maanta yimidna waxaa ka mid ahaa safiirka Switzerland iyo hay'adaha caalamiga ah
oo arrimaha Soomaaliya iyo qaabilsan ururada caalamiga ah oo aan xusi karo oo iyaguna ka shaqeeya arrimaha horumarinta dimuqraadiyadda iyo maaragtay in ay la socdaan waxa kamid ah macadka doorashooyinka iyo hanaqaadka dimuqraadiyadda oo hadda wakiiladoodii ay nala joogeen maanta ay goobaha nagu soo kormeereen dhinaca kale oo badayna ay tageen ilaa iyo qarxis meel ay ku soo wareegeen lama arko kulligay saaxiibadaas waxay markhaati nooga noqonayeen hawshan aan wadno inay si xora oo xalaal u dhacday innaguna aan ku wada faraxsannahay ilaahay mahadiis waxaan ku talagalaynaa haddii alla idmo inaan sugno uun saacadaha soo socda natiijadii iyadoo rasmi ah oo buuxdana waqtigeeda ay ururka guddiga Tibek si rasmi ugu dhawaaqi doona haddii alla idmo waxaan ma hadda iskale ilaahay ka soo koobno dadka reer Ayl shacabka aad waxaan looga shaqeeyay nabadgelyada shacabka haweenka ragga noocyada kala duwan waxaan u mahadnaqaynaa saxaafadda dhammaan iyo wixii shaqada nala qabtay marka ugu horeysa ilaaha subxaanahu wa tacaala baa mahad iska leh doorashadii muddada badan la sugayay noogu dhameeyay nabadgelyo iyo wanaag daan annagu nahay ciidanka amniga waxaan sugaynaa amniga una xil saarnayn amniga doorashadu wuxuu u dhacday sidii loo baahnaa 16 goobood baa hadda jawaabtoodii la helay iyo laba goobood oo laga codaynayo iyagana mar dhow la helayo iyaguna waa amnigoodu waa fiican yahay arrimo farsamo iyo arrimo dadkii oo badan bay u daaheen iyagana waa la helayaa